aadan maxamed cumar waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo xoogsan jiray kuna nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal dhismo guriga ayuu ka soo dhacay waxaana uu ka jabay dhabarka lugihiisuna waxa ay noqdeen kuwa gabi ahaanba aan shaqaynaynin isla mar ahaantaasina baqtiyay aadan xaaladiisu aad ayay u xun tahay qoyska uu la nool yahayna waa qoys tan yar ah oo waxba ka qaban waayay xaaladiisa caafimaad sariirta uu ku jiifo kama kaco kama tooso mana tiirsan karo isaga oo bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in gargaar loo fidiyo maadaama xaaladiisu ay tahay mid gabi ahaanba halis ah oo aan waxba laga qaban karin dalka gudihiisa aadan waa wiil dhalinyaro ah oo lahayn awlaad iyo xaasba waana wiil doob ah balse haatan noloshiisu ay khatar ku jirto guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed wuxuu ka codsaday in gargaar loo fidiyo si noloshiisa loo badbaadiyo haddayba suurtagal tahay aadan ayaa isagoo guriga ku booqanay waxaan xaaladiisa u arkaynay mid gabi ahaanba aan waxba laga qaban karin dalka gudihiisa iyadoo oo dadka muxsiniinta iyo ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay caawiyaan walaalkooda muslimka ah ee isagu Boorama ku xanuunsan waxaan ahay aadan maxamed cumar waxaan ahay ninka dhibaataysan waxaan doonayaa caalamka iyo hay'adaha caalamka iyo ummadda Nabi Maxamed inay soo caawiyaan oo cidii wax ay qaban kartaba ay baaq u dirayaa caalamka in maamulka dawladda cid walba cid alla cid dhibaatadaasi ummadda Nabi Maxamed hadii hay'ad tahay dawladda caalamka kala tahay baaq waan u dirayaa marka walaal dhibaato si ku gaadh dhibaatada meel baan ka soo dhacay marka dhabarkan ka jabay in maxaa dhaayarka in dabadhilistran waan ka jabay gacanta waan ka jabay iyadoo ay kawantay marka in dhibaato badan baan qabaa lagu way baqtiisan yihiin cidii waxay qaban kartaba caalamka ayaan baaq u dirayaa ummadda Nabi Maxamed hadii dawlad tahay iyo hadii caalamka kala tahay iyo hadii hay'ad tahayba waxaan hadda ku suganahay mid kamid ah guryaha uu yaalo wiilka bukaanka ah ee aad arkaysiin nabadiisa iyo dhibaatadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wax inoo qaban karaa isla markaynu u gargaari karna markaynu dhaxdeena isu gargaar runaantii intii aan ku jiray ee dul joogay qofkaasi bukaanka xanuunsanaya damiirkay uu si weyn dhaawiciisa aan aad u yahay shirkadu wiilkan u shaqaynayay dhismo ayuu ka soo dhacay dhabarku ka jabay gacmo ka jabay labada lugood ma dhaqaaqayaan ma fadhiisan karo subhanallah war Ilaahay ayayna abuuray war bani'aadanka qofka baahan ee maanta aynu wax u qaban karno aynu isu gargaarno Ilaahay uu noo gargaaraya please qof kasta wuxuu hayo ku caawiyo miskiinka xaaladiisa waxba loogama qaban karo wadanka gudihiisa in dalka dibadiisa loo diro loo baahan yahay waxaan ummadda muslimiinta meel kasta dunida ka joogan ku codsanayna bal inay soo caawiyaan wiilkaas miskiinka ee Boorama jooga ama inaad kala xidhiidhaan nambarka shaashada ka muuqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV Boorama